بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها iyo gudoomiye ku-xigeenka ku-xigeenada golaha wakiilada madaxweyne ku-xigeenka wasiirada cusub ee xasaanada la siiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa runtii marka ugu horeysa u mahad celinayaa golaha wakiilada ee sida sharafta leh u ansixiyey barnaamijkii siyaasadeed iyo golihii xukuumadda ee aan dhowaan soo dhisnay waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa golaha wasiirada ee cusub sida sharafta leh ee u soo bandhigeen taariikhdoodii mugga badnayd oo baraysay dadka reer Puntland qaybihiisa kala duwan waxaan u rajaynayaa hawsha loo igmaday inuu Ilaahay u fududeeyo siday tahan uga soo baxaan maanta waa maalin taariikhiya dowladda Puntland 8 January waxaa ka dhacday doorasho lagu doortay madaxda maanta talada haysa muddadaas doorashadu dhacday ilaa hadda waxay ku guda jireen inay soo dhisaan xukuumad oo runtii waqti u dheeraa ee xukuumad lagu soo dhiso Puntland qaadatay la tashi fara badan aan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan cid kasta oo mudan in lala tashado runtii marxaladii aan doorashada ku jiray oo 2 sano campaign ku jiray waxa iga cuslayd bishii aan soo xulaayay golaha wakiilada wasiirada waxay ahayd arrin aad u adag inaan iswaafajiyo kelmadeedii saldhig u ahayd doorashada oo ahayd tayeynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirada laga mid noqdo aad bay u adkayd in la iswaafajiyo arrintaas waxa kale oo aad u adkaa si aan tayadaas uga miro dhaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dowlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay 300 kor u dhaafayeen kuwa dalka gudihiisa jooga badnaa iyo kuwa badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadalnay waxaan aad uga cudur daaranayaa intii jecelayd inay golaha ka mid noqoto oo fursad u maasaabixin macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqada qabtaan laakiin inta la doonayo koobnayd waqtiga aad u adkaa waxa Ilaahay solon siiyay intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummadooda u shaqeeyaan runtii waxyaabaha tirada golaha wasiirada oo jeclaa inay intaan ka yaraadaan badiyay baahida dadka reer Puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan oo runtii aan aad uga xumahay in macnihii golo wasiiro uu halis ku jiro oo ay u muuqatay meel laga dheehdo inuu qabiilkaas halka degan yahay macnahaas waa macna halis ku ah mustaqbalka ee dawladnimada Soomaaliya 20 sano kadib in dadka reer Puntland sidii dawladdu heshiisiina inay iska wada dhaxarkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada Puntland loo shaqeeyo waxa aad igu soo badbadatay kelmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qaybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin service ay u baahan yihiin dadka u shaqeynaya inay si cadaalad ugu garsooraan taasaa anigu arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada mid noqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan boorinayaa dadka reer Puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay'adda fulinta ee u shaqeynaysa inta badan ee bulshada ah waxa arkaysaan oo qorshahay ka mid ahaa inay wasiiru dowlayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayay shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asad ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad dheeriya u leeyihiin in dalka
inay Puntland ay seegaan dadka noocaas waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha duulista oo pilot ah waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha waxbarashada oo khabiir waxbarasho ah waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha qorsheynta oo muddo badan ka shaqeeyay waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha oo runtii siyaasi rugcadaa oo dhulkaas si fiican u yaqaan iyo wasiiru dowlayaasha kale naftirkoodu waxay ku mutaysteen in ay wasaaradda u noqdaan kabka ugu weyn ee dhinaca tayada waxaan rajaynayaa golahan wasiiradu inuu noqon doono wasaarad ahaan iyo guud ahaanba golo si wadareeda u shaqeeya wasaaradaha waxaan ka rajaynayaa wasaaradaha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka leh ama wasiiru dowlaha leh inay u shaqeeyaan sidii qof qura oo awooddooda iyo kartidooda iyo aqoontooda ay u midayaan inay u horumariyaan dalkan waxqabadkiisa waxaan aad uga xumahay oon jeclaa saamiga golaha wasiirada wasiir ku-xigeenada maaha wasiirada ay gabdhuhu ku leeyihiin anigoo runtii ka shidaal qaadanayay inay golaha baarlamaanka ee hal gabar aan ku yeelanno waxaa aad ugu dadaalay inay ugu yaraan 3 wasiir helaan laakiin culayska reeraha iga qabsaday oo runtii aniga waxaan qirayaa culays isimada iga qabsaday sanadka ma jirin waxaan ka codsaday inay waqti siiyaan oo ii daayaan inaan xusho aad baan uga aqbalay waan ku mahadinayaa laakiin culays siyaasiyiinta iga qabsaday oo diidan inay gabdhuhu door yeeshaan ayaa isoo fuulay waan ka xumahay inay sidaa wax u dhacaan waxaan rajaynayaa Puntland inay u guurto aragti siyaasadeed oo ka ballaaran minta maanta ay haysato waxa weeye Puntland waa mid shacabkeedu waa mid dawladdeedu inay mid noqoto la rabaa qofka wasiirka noqday waxa la rabaa Puntland dhan inuu wasiir u noqdo reer wasiir uma aha dad gaarana wasiir uma aha waxaan ka badin waayay in sidaa wax loo dhiso laakiin waxaan rajaynayaa inay tani noqoto midda ugu dambaysa mustaqbalka soo socda golayaasha wasiiro ee dawladaha iga dambeeya samaysmi doona inay noqdaan wax lagu xisho qofka khibraddiisa iyo wasaaradda uu ku habboon yahay khibraddiisa siyaasadeed middiisa maamul iyo middiisa dawladnimo si uu dadka ugu adeego waxaan aad iyo aad u rajaynayaa annagoo matalaya golaha xukuumadda ee fulinta golaha baarlamaanka oo ah saldhigga ama hooyada dawladnimada golaha garsoorka oo ah golo ilaalinaya howlaha ummadda loo qabanayo iyo kuway qabsanaya inay cadaalad ku socdaan inay noqdaan 3 hay-adood oo iskorjoogtooya oo iskaba oo ay ka soo baxdo shaqo qurxoon oo ummaddan ay yeelato waxaan sidoo kaleeto rajaynayaa golayaasha aan hadda sheegay kuwa aan ahayn ee ah golayaasha civil society-ga oo saxaafadda u horeyso golayaasha isimada iyo dhaqanka golayaasha culimada golayaasha ganacsatada iyo dadka kale ee mihnada leh ee dalkan uu leeyahay inay si madaysan uga wada shaqeeyaan inay Puntland horumarkeedana ka shaqeeyaan Soomaaliyana gacan weyn ka geystaan waxaan aad iyo aad u rajaynayaa wasiirada cusub inay noqdaan kuwa ku filan hawsha loo igmaday kuwa ka soo baxa waajibka ummadooda saareen ay u dhaarteen kuwa ogolaada in la xisaabiyo iyagana xisaabiyo inta ay xukumaan waan rajaynayaa inay loo baxo marxalad ka duwan maraaxishii hore dalka waxaan rajaynayaa inuu horumar amni mid nabadgelyo mid horumar dhaqaale inaan gaarno waxaad ogaataan dawladdan hadafkeeda ugu weyn wuxuu yahay soo celinta dhulka maqan xasilinta nabadgelyada dhulka khatarta ku jiro ee u horeyso labada buureed ee Calmiskaad iyo Calmadow waxaan ka codsanayaa xubnaha golaha wakiilada ee dhammaan gobollada hadda khatartu ka jirta ka soo jeeda inay gacan ka siiyaan golaha xukuumadda sida waajibkooda u gustaan guud ahaan shacabka Puntland waxaan farayaa ama u sheegayaa ama ka codsanayaa inay la shaqeeyaan golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka si dhow waxaan rajaynaynaa in marxaladda soo socota ay noqoto marxalad mujtamacan uu ku noolaado nabadgelyo iyo nolol
dabiici ah kana shaqayno inay horumarka noloshooda ay maareeyaan wasaaradda cusub ee ku soo korodhay waxaan rajaynayaa inay qayb weyn ka qaadan doonto baahida u weyn marka laga soo tago amni ee dalkan maanta uu qabo oo horumarkiisa dhaqaale hor istaagan waa baahida dhinaca adeegyada korontada iyo biyaha waxaan rajaynayaa wasaaraddaas inay u samayn doonto siyaasado cad iyo shuruuc hagta waxa hadda aan haysanno una gogol xaarta inuu dalku maalgelin uu soo galo ku saabsan dhinacyadaas laga kaalmeeyo waxaa kaloo wasaaradda hoostaga dhinaca macdanta iyo batroolka oo dalkan uu qani ku yahay oo aan rajaynayno in aan shaqo badan laga qabto si dalkan uu helo dhaqaale ummadda loogu adeego waxaan runtii qirayaa ragga halka hortiina ka akhriyay CV-yadoodu idinkuna aad qiraysaan qof walba meeshii uu ku habboonaa oo khibradda u lahaa inuu joogo intooda badan intii ay noo diiday duruufaha siyaasadeed marka laga reebo waxaan aad ugu dadaalnay ugu yaraan wasaarad kasta mid ama labo hadday saddex leedahayna saddex labo ka mid ah hadday labo leedahayna mid ka mid a ugu yaraan inuu wasaaraddaas khibrad iyo aqoon ku filan uu u leeyahay dadka xooggooda waxaan ku xulinaynaa inay yihiin dad khibrad bulshada u leh oo dalka ka joogay oo dalka ka shaqaynayay muhiimad nooma lahayn inuu baasaboor dal kale ka soo qaatay maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed oo dhan baa marxaladaha ka mid ah qaxay laakiin waxaa muhiim loo ahaa inuu ahaa nin dalka ka warqaba ama joogay waqti fara badan ama inta badan imaanayay oo xog ka haya oo bulshada iyo dhaqankeeda iyo baahideeda la falgeli kara waxaan rajaynayaa inta badan ee aqoonta leh ee dibadaha jirta inta aynan mas'uuliyad qaban inay dalka noogu soo noqdaan oo shaqooyinka qabtaan oo dadka bartaan si mustaqbalka hoggaanka ay uga mid noqdaan iyadoo ah asad ummaddan leeyahay oo aan la inkiri karin laakiin ma rajaynayno in uu maalinta la magacaabayo ay noqoto maalinta ugu horreysa uu dalka yimaado waxaan rabnaa isagoo bulshada yaqaan dadka ku dhex jira inuu noqdo inuu ummadda u shaqeeyo marka waan rajaynayaa iyaguna inay tusaale u noqoto inay marar badan ay yimaadaan oo dalka ka sii shaqeeyaan si khibradda dalka iyo shacabka u kasbadaan waad mahadsantihiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu